بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan u tacsiyeynayaa dayaxdal murshe iyo inantiisii iyo eheladii farxiyo booslayli. subax walba dunida haddaad saaran tahay waa tiilaanyo murugo iyo xanuun. maalinba reer bay dun taagan tahay. ilaahay qabrigeeda ha u nuuro. sonkortu waa dilaa, waa kilar, saylan kilar weeyaan. soomaalidu laakiin kuma baraarugsana. waanigii idinka soo sheekeynayey wixii aan ku maqnaa iyo saan noqday, weliba iyadoo teebtooya teeb1 uu ka halis badan yahay. dawooyinka aan hadda faytamiinadan qaadanayay, qofka teeb1ka qaba weligii wuu qaadanaya, uu la noolaanaya. laakiin qofkii teeb2ga qaba si dabiiciya ayay uga baxaysaa haddii uu raaco broseyska oo uu yiri dhakhtarka raaca. geeri qalbigayga gilgishay, ilaahay baan ku dhaartay, qalbigayga gilgishay farxiyo geerideed. ilaah kuu naxariiso. gabadh afgaaban bay ahayd. hoogoodu laakiin wuxuu soo galay kuwii habaarayey, caayayey, daba dhigtay. waxaan arkay hadeer muuqaal la wareejinayo, qof soo qorayeen habartani may iska dhimato, wiilka way dhigto ka hor leexato. saacaddeeda ma dhaafteen farxiyo, maantay ku ekayd saacaddeedii, xilligay ku ekayd bay dhimata. irsaaqadeeduna intaasii dunida kaga ekayd. laakiin adiga hooggaagaa soo galay. iyo ku cafin doona, hadalkaa tiriya kaa cafin doona. haddiise habaarkaaga iyo ishaada darteed ay wax u gaadheen, soo ma ogid inaad gacan ku dhiigla tahay. dadku waa adin ku dhiigle, erey ku dhiigle, af ku dhiigle, gacan ku dhiigle. af ku dhiigla wadaa ugu daran, waad hoogtay. il ku dhiigle kan wax cawriye ee ishiisa lagu dhinto. farxiyo saacaddeedii bay dhimatay. ilaahay qabriga ha u nuuro. qof helo jannaa weeyaan, sababtoo ah gabadh afgaaban bay ahayd. sidaasaa dhinacyada loo haysan jiray. dayaxdal nuurshe, ilaahay qalbiga ha kuu dejiyo, adiga inantaada yar iyo eheladeedii iyo waalidiintiinii iyo waalidiinteedii oo dhan. ma garanayo waxa ka hadlayo. allah u naxariisto. intaa ka badan wallahi ma hadli karo.